howlgalkan oo ahaa mid qorshaysan wax lagu khaarijiyay horjooga ka tirsanaa maleeshiyada al-shabaab deegaanada ciidamada howlgalka ka fuliyeen waxaa ka mid ah Shiide, Dudumaale, Tijeegbool, Abaqbeeday, Wargaloole. dhammaan deegaanadan waxay ku teedsan yihiin wadada isku xirta degmada Xudur iyo degmada Tiyeeglow. taliyaha guutada 9aad qaybta 6aad ee ciidanka xooga dalka gaashaanle sare Warsame Maxamed Diiriye ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalkan oo ay ka sameeyeen deegaanadan iyo hoos yimaada degmada Xudur ee gobolka Bakool. xalay ciidan baa iska hor yimid in shabaab oo caan ahay dhulkaas dhuunta u galay oo cashuur iyo wax walba ka aruurinayay meesha ayada ah dadkana leynayay baa xalay lagu guuleystay in maashaas laga ilfaha looga qaado. deegaan fara badan baan ka sameynay howlgal adag waan ku soo guuleysanay. deegaanada waxaa ka mid ah Shiidle, Dudumaale, Tiyeegbool. maxay tahay marka sababta deegaanadaas aad u adeemaan? shacabkii waxaa wareeriyay niman la dhaho shabaab u diiday hantidoodii iyo noloshoodiiba inay caga dhigtaan. shacabkii baa noo keenay marka cabasho ciidanka oo dhowr madaxan ku sii daayay marka may ciidamada waajibkooda ay gudanayaan go'aan adag bay wataan. wajahadii hore iyo qaabkii hore aan ku socon jirnayna waan bedelay qaab cajiib ayaan ku soconaa. hadda waan ku guuleysanay in badan baan ku guuleysanay. annagu waxaan noo qorshay aaga muxuu ahaayey guutada 9aad iyo aaga Xudur oo dhanba inaan ka xoreyno. may annagu hal wada ama badniinba 4 koono weeyo ciidan hubeysan oo loo tababaray oo dhabagalka iyo muxuu ahaayey weerarka aad u yaqaanaan u dirnaa ayagaana ka howlgalo. Maxamed Xasan Cabdiraxmaan, raadiyaha telefishanka qaranka magaalada Xudur.